abaartii oo ay u soo kala qaybiyeen 3 qaybood qayb dhexe iyo qayb aad iyo aad u xun iyo mid iska dhexdhexaad ah saddexdaas ay dalka u soo kala qaybiyeen iyagoo qiimeynaya ujeedadooduna ay ahaydaan abaaraan oo qiimeynayay uun dadkii goobihii hore iska diiwaangeliyey sidii in laga helayo si kaarka loo siiyo goobihii oo komishanku ugu geeyo iyo inaan laga helayn ta u weyn ay ihtimaamka siinayeen taasay ahayd jaamacadaha iyo ardaydii ka shaqaynaysay tababarkoodii iyo howlgelintoodii iyo shaqaalaha iyo waxaasina way ka wadeen iyo wixii kale hawle ay leeyihiinba runtii waxay noo sheegeen oo saddexda cisbi u sheegeen marka magaalooyinka waaweyn laga reebo in dhulka baran ilaa saylac marka la qiimeeyo in abaaro ba'ani ay ka jiraan dalka gebi ahaanba waana sii kala badantoo gobolladu inay sii kala badan yihiinna waa ay noo sheegeen oo abaartu ay ku kala badan tahay markay isku celceliyeen waxay noqotay dadkeennii 57% waxaan magaalooyinka joogine miyiga joogaa inay ka qaxeen dhulkii ay deganaayeen oo abaarta ay si xun u saamaysay oo 57 ay noqotay xaaladda Somaliland abaaraha ka jira inay aad iyo aad u xun tahay ayay noo sheegeen wixii warbixinaa ee kale iyo hawshoodii kale ee komishan ahaan halkay u maraysana si fiican bay noo brief gareeyeen runtii aad iyo aad baan u ammaanaynaa komishanku dadaalka badan ee ay geliyeen si hawsha doorashooyinku ay u hirgalaan waxaanu ku ballannay wixii maanta aanu sareynay waa laysidii laakiin maanta go-aan lama soo saarin saa dambe insha allah waan isku imaynaa saa dambaana wixii go-aana la soo saari doona wallaahi waxay noo sheegeen in ayagoo hawshu u marayso meeshii ugu ficnay si fiican ay hawshu u socoto ayaga xaggooga farsamo ahaan wax dhiboo ayaga ka taagan ma jira xaggooga